السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال كسر دوادا هالكني وكرمية برايفل سكول وبارت 9 وقيبتي سجالات مركان كبرنا نيلو قد إنجليزية وحنوصل سعودي هوري daily uses English sentences وجملتها سيدا جوكتها مالين لها لو أديكسدو قف كستو باهي جملتها أي إذا كشرح دونا وحديثو دياريي وكونتون أري أو لغة إنجليزية أو ولي بكوسابسن هي أيو كوسابسن يعني جملة كستو حكا بلعبان دونتا هي أو معنى يدو تهي إساقا هي ومحي قف كلامك كهاليسو isaga macnaha qof kale aad ka warbixinaysaa way waxaan oo dhan jumladahan oo dhan qof kale markaad ka warbixinayso ayaad u adeegsanaysaa marka hii waa isaga waliba waxaan qaadan doonaa in affirmative form hab markaasi affirmative ah oo caadi ah macnaheed diidmana kuma jirto oo not ma soo galayso su'aalna ma soo gali doonto iyadoo diidma ahna part 10 baan ku keeni doonaa iyadoo question ahna waxaan ku keeni doonaa part 11 oo qaybtii 12 baan ku keeni doonaa haduu ay qadaro hadaba konton kan eray oo affirmative ka ee ku saabsan he hadaba ila baromanta kuna soo dhawaada saaxiibayaal 50 daily uses English sentences wa konton daily uses wa maxay 50 wa konton daily uses wa maxay English sentences jumlado Ingiriisi si joogto ah loo adeegsado daily uses si joogto ah loo adeegsado English sentences jumlada ah Ingiriisi ah he ayuu ku saabsan yahay waana isaga in affirmative form hab caadi ah ee qofka laga warbixinayo si markaasi positive ah ayaan ku keenaynaa jumladahan jumlada koowaad aan ka bilaabo marka jumlada koowaad ilaa jumlada kontonaad hadda ila gaarto cilmi fara badan ama aqoon fara badan ee luqadda Ingiriisiga maanta waad faa'iidaysaa insha Allah jumlada koowaad he wakes up early isaga wuxuu toosaa xilli hore wuxuu hurdada ka toosaa xilli hore ayuu ka kacaa hurdada he wakes up isaga wuxuu hurdada ka toosaa early xilli hore jumlada labaad he brushes his teeth wuxuu cadeeyaa ilkihiisii he brushes wuxuu cadeeyaa his teeth ilkihiisii he takes a shower wuu qubaystaa he takes a shower waa qubaystaa he eats breakfast wuxuu cunaa quraac he eats isaga wuxuu cunaa waa maalin walba breakfast quraac ayuu cunaa jumlada shanaad he drinks coffee wuxuu cabaa qahwe ama qaxwo he drinks coffee wuxuu isaga cabaa qaxwo he goes to work wuxuu aadaa shaqo he goes to work isaga wuxuu aadaa shaqo he drives a car wuxuu isaga kaxeeyaa gaari he drives a car isaga wuxuu kaxeeyaa gaari he walks to the office isaga wuxuu u socdaalaa xafiiskiisa ama xafiiska he walks to the office xafiiska isaga wuu u socdaalaa ee waa u lugeeyaa he works hard si adag ayuu u shaqeeyaa he works hard si adag buu u shaqeeyaa he writes emails wuxuu qoraa emailada he writes emails isaga wuxuu qoraa emailska ama emailada he talks to his boss isaga wuxuu la hadlaa madaxiisa he talks to his boss isaga wuxuu la hadlaa madaxiisa adoo madaxa kan kugu yaala ma ahe madaxa boss waxa way qofka u shaqeynayso ee markaas aad shaqaalaha u tahay jumlada 12aad he attends meetings wuxuu isaga ka qayb galaa kulamo ayuu ka qayb galaa he answers phone calls isaga wuxuu ka jawaabaa wicitaanada mobilka he answers phone calls isaga wuxuu ka jawaabaa wicitaanada mobilada he drinks water regularly si joogto ah ayuu biyaha u cabaa he drinks isaga wuxuu cabaa water biyaha ayuu cabaa regularly si joogto ah he eats lunch at noon wuxuu isaga cunaa qadada duhurkii he eats isaga wuxuu cunaa lunch qado at noon xilliga duhurkii ayuu qadadiisa cunaa lunch waa qado he reads the newspaper isaga wuxuu akhriyaa the newspaper jaraa'idka wararka ee joornaalada wararka ayuu akhriyaa he helps his coworkers wuxuu caabiyaa asxaabtiisa isku shaqada ay yihiin coworkers waxa way asxaabta isku shaqada yihiin waxa marka wuxuu leeyahay he
helps isaga wuxuu caawiyaa his coworkers asxaabtiisa isku shaqada ah ayuu caawiyaa help waa caawin coworkers waa maxay asxaabta isku shaqo tihiin waa he learns new skills wuxuu bartaa xirfado cusub he learns new skills wuxuu bartaa xirfado cusub he takes short breaks isaga wuxuu qaataa nasasho gaaban he takes short breaks wuxuu qaataa nasasho gaaban aanu gudubno jumlada 20aad he uses a computer isaga wuxuu adeegsadaa computer he uses a computer isaga wuxuu isticmaalaa computer he types very fast si dhaqsi badan leh ayuu wax u qoraa he types wuxuu wax u qoraa very fast si aad u dhaqsi leh ayuu wax u qoraa he finishes his tasks wuxuu dhameeyaa shaqooyinkiisii yaryaraa he finishes wuxuu dhameeyaa his tasks shaqooyinkiisii yaryaraa tasks waxa waa shaqooyinka yaryar ee maalin walba aad qabato si joogto ah jumlada 23 waxay ku leedahay he leaves the office at 5 p.m. wuxuu xafiiska ka tagaa 5 galabnimo he leaves wuxuu ka tagaa the office xafiiska at 5 p.m. 5 galabnimo ayuu ka tagaa xafiiskiisa he shops for groceries isaga wuxuu iibsadaa raashinka guriga ee loo baahan yahay macnaha waxa waaye he waa isaga shops waa maxay shops wuxuu wax ka iibsanayaa oo wuxuu wax ka iibsadaa okay dukaan wax uu ka gadayaa groceries waa maxay alaabta maalinlaha ah ee guriga laga isticmaalo sida bariiska sonkor caano khudaar hilib iyo wax la mid ah kaas loo yaqaan groceries macnaha waxa waaye marka he shops for groceries isaga wuxuu iibsadaa wuxuu dukaanka ka iibiyaa waxyaabo alaabta maalinlaha ee guriga looga baahan yahay he buys fruits and vegetables wuxuu isaga soo iibsadaa waxyaabaha miraha iyo qudaarta he buys wuxuu soo gataa fruits oo ah miraha and vegetables iyo qudaarta he cooks dinner wuxuu kariyaa casho he cooks dinner isaga wuxuu kariyaa casho dinnerna waa casho he washes the dishes wuxuu dhaqaa saxmanka he watches TV wuxuu daawadaa TV-ga he watches TV isaga wuxuu daawadaa TV he listens to music isaga wuxuu dhageystaa musica he plays games on his phone wuxuu game ku ciyaaraa mobilkiisa hadaba jumlada 31 aanu gudubno he calls his friends isaga wuxuu wacaa asxaabtiisa he talks to his family wuxuu la hadlaa qoyskiisa ama qaraabadiisa he goes for a walk wuxuu isaga aadaa socod isaga socod buu aadaa he exercises at home guriga ayuu ku jimicsadaa he studies English Ingiriis ayuu bartaa he reads books at night habeenkii ayuu buugaag akhriyaa wuxuu akhriyaa buugaag at night habeenkii he writes in his notebook wuxuu wax ku qoraa buugiisa xusuus qorka ah isaga wuxuu wax ku qoraa in his notebook buugiisa xusuus qorka ah he plans his day wuxuu qorsheeyaa maalintiisa isaga wuxuu qorshe u degsadaa his day maalintiisa wuxuu sameyn lahaa he checks his calendar wuxuu hubiyaa taariikh sheegihiisa calendar waa meesha taariikhda iyo bilooyinka laga socdo he prays before sleeping isaga wuu tukadaa hurdada ka hor hurdadiisa ka hor ayuu tukadaa okay jumlada 41 aanu gudubno he sets his alarm
he sets his alarm isaga wuxuu degsadaa alarmigiisa alarmike waa alarm waxa weeyaan mobilkaaga in habeenkii wax ku xirato xilliga aad soo kiciisad ku xiranaysa marka xilliga la gaaro waa ku soo qaylinaya marka gambaleel la yiraahdo gambaleel he sets his alarm wuxuu isaga degsadaa gambaleelkiisa he sleeps at 10 p.m. wuxuu seexdaa 10 habeenimo oo aniga waan dhahno 4 saac habeenimo dhahnaa he sleeps at 10 p.m. isaga wuxuu hurdaa wuxuu seexdaa he sleeps isaga wuxuu seexdaa at 10 p.m. 10 habeenimo ayuu seexdaa 10kii he loves his family wuxuu jecel yahay qoyskiisa he respects his parents wuxuu xushmeeyaa waalidkiisa he cares about his friends wuxuu ka taxadiraa asxaabtiisa he cares about his friends isaga wuxuu ka taxadiraa asxaabtiisa he wears clean clothes he wears isaga wuxuu xidhaa wuxuu gashadaa clean clothes dhar nadiif ah he keeps his room tidy qolkiisa nadiif ahaanshihiisa ayuu ka shaqeeyaa he keeps his room tidy qolkiisa nadiif ahaanshihiisa ayuu ilaaliyaa uu ka taxadiraa he smiles often badana wuu dhoola cadeeyaa he smiles often badana wuu dhoola cadeeyaa often waa maxay badana waa macna smiles dhoola cadeenkii waa he speaks politely wuxuu u hadlaa si aadaab leh he speaks politely si aadaab leh ayuu u hadlaa he believes in himself wuxuu aaminaa naftiisa hadaba halkaas haynoo joogo baartiteenna la soco adiga iyo waxay ka faa'iido insha Allah commentiga noogu reeb maanta maxaad faa'iiday ood baratay